haddaan guul doonayno liibaan doonayno cizi doonayno sharaf doonayno waa inaan nebigeenna raacnaa hadba inta ummaddu dhaqankii nebi maxamed aan ka sii fogaanno waxaad ogaataa ilaahayna waa inaga fogaanayaayo ogow ghaswatu uxud ayaa darsi baa duruus baa ayaa ku duuban duruus ibn qayim aljawsi raximahullah fi zaad almacaad buu kaga warramay inta masaa'il uu ka soo saaray sheekhaasi fii ghaswati uxud hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalurumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa uu dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysannood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaaladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qole waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiinta ee raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulwaliid oo maalintaa aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahee fardoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo ka keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawacu waa gaadhay 70 saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelyaa ilaahay ummadda siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartii waa ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi intaad adigu ummaddaada dhex joogtana cadaabi mayna baa ilaahay yidhi inta ummaddaadu dembidhaaf ilaahay ay weyddiisanayaan ee ilaahay ay u soo noqonayaanna cadaabi mayna baa ilaahay yidhi marka amar nebi maxamed ka soo fulay oo jamaacadda qayb ka mida ay jebiyeen ayaa muslimiinta maalintaa jab ku soo gaadhay oo 70 nin oo saxaabadu ku shahiiday nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday ma ahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxa qisadda inoogu filan oon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow waatiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin bal inta axkaami aayadda ku jirta u fiirsada wa atiicu allaha warasuulahu ilaahay adeeca baa la yidhi oo rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu ininka dhexdiinna baa ilaahay yidhi ha marmina xaqa laguma marmo xaqu waa cad yahay waa la raacaa xaqa haddaad tanaasac mulkiga haddaad isku qabsataan iyo maamulka haddaad talada ummadda isku qabsataan kanaa sax iyo kanaa qalada haddaad isku qabsataan oo muslimiinta dhexdooda uu ka dhaco maram ku salaysan baatil oo xaq aanan ahayn hadduu dhexdooda uu ka dhaco fatafshaluu baa ilaahay yidhi waad fashilmaysaan fashal hadduu yimaadana maxaa ka dhacaya watadhaba riixukum quwaddiinni iyo midnimadiinni baa tegaysa baa ilaahay yidhi waa lagu soo celiyoo la yidhi haddana wa atiicu allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa adeeca baa lagu yidhi in kuntum mu'miniin
haddii aad tihiin kuwa iimaan labaa ilaahay yidhi markaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshaa uu ummadda ula yimiday baa la rabaa inaan ku dayanno xayaata alislaam haddaad nolosha islaamka aad raaci weydid waxaad raacaysaa xayaata xayawaaniya xayaatada la yidhaahdo marka shayga ugu muhiimsani nebigeenna kaga dayanaynaa waa maxay bay culimmadu yidhahdeen waa qaabkii nebigeenna ummadda uu risaaladda u gaadhsiinayey tabliiq arisaala akbar mucjiza waa taas sidee nebigu ummadda u tarbiyadeeyey sidee buu nebigu ummadda risaaladda u gaadhsiiyey kayfiyadday nebi maxamed oo ummadda risaaladda ku gaadhsiiyey kayfiyaddee bay ahayd wakhtigaa inagu dheeraan laakiin nebigeenna moxamed calayh isalaatu wasalaam inaan ku dayanno oo noloshiisa aan baranno oon ubadkeenna barno oon ku dhaqanno oo diintaa ilaahayna siiye nolosheenna ay ka muuqato dadaal baa loo baahan yahay markaas dadaalkaasi culummada keliya maaha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay nebigu diinta in ummadda la gaadhsiiyo diin la baro xilka culummada keliya nebigu ma saarin muslim kasta xilka nebigu uu ku wareejiyo uu saaray balliquu cannii walow aaya balliquu amar cannii waa tashriif iyo takriim walow aaya waa takhfiif laguu khafiifiyey laguu fudaydiyey rasaaladdii dee insha allah dhahada inaan dadaalka diinta u wada kacno oo hadyigii nebigeenna aan raacno ku dayanno ma wada niyooteen insha allah insha allah dhahada insha allah dhahada si fiican u taaga gacanta allah ina aqbalo dembigeenna allah ha dhaaf saad noo soo dhoweyseen allah nii soo dhoweeyo masaajidku waa masaajidkeennii xaafaddu waa xaafadeennii magaaladu waa wada magaaladeennii aniguna wadaad musaafir oo qariiba mahiye waa iska ubaan iska ahay ma og tahay dhulku waa dhulkeennii dadku waa dadkeennii dalku waa dalkeennii amnigana allah inoo adkeeyo wixii diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna u danana madaxdeenna allah garansiiyo innakana insha allah dadaalka diinta han guddoonno oo nimankiina ganacsatadaee suuqa jooga dee tijaaraddaada haddaad wakhti ku bixin iyadu ma iswadi dukaan baan furtay wakhtina ku bixin maayo ha ii xidhnaado intay badeecaddii oo dhan ay dhex taallo ma iswadaya isagu diintan tijaarad weeyaan ilaahayna siiyo badeecad ilaahay wuxuuna siiyey caalamkao dhan u baahan yahay marka badeecaddaas inaan wakhti ku bixinaan u baahannahay markaas habeenka jimcahana markaska ka soo qayb gala insha allahna sheekha inoo khatimi doona insha allah allah ina barakeeyo jazaaka allahu khayran